faqrigu saaxiib waa faqriga nafta hodantinimaduna waa hodantinimada nafta hodantinimada khayrkoo dhan qanaacada ayay ku jirtaa sharta faqrigoo dhanna dullinimada ayay ku jirtaa ku raali noqo wuxuu alle kuu qaybay qaybna kuu siiyey ogowna hodantinimadu ma ahan inaad xoolo badan haysato faqriguna ma ahan maalla'aanta haddii aad haysato quudka maalintaada jirkaaguna caafimaad qabo waa maxay hodantinimada kaa maqan waa maxay faqriga aad ka sheeganayso waa maxay baahida aad la taahayso waa maxay danta aad xoolo iyo maal xisaab badan aakhiro kugu sugayso aad u dalbanayso nimcooyin badan ayaad haysataa nimcadii islaamka ayaad haysataa tawxiidkii ayaad haysataa nimcadii caafimaadka ayaad haysataa akhlaaqduna waa nimcad iimaankaagu waa nimcad fidradaada saliimka ahina waa nimcad akhlaaqdu waa tan ugu sarraysa arsaaqda oo waa akhlaaq wacan oo wallaah kuugu deeqay akhlaaqduna wax loo dhiga ma leh reerkaagu waa nimcad caafimaadkaad haysataa oo aanan dad badan haysanin waa nimcad dhabankaaga dhididka ku yaal shaqo awgeeda waa nimcad nidaamkaagu waa nimcad niyad samaantaadu waa nimcad khayrmalaysigaagu waa nimcad kulligaaga nimcad ayaa kugu hareeraysan waa maxay dhibkaad ka sheeganaysaay risqigaaga raadso rabbigaagana tala saaro rafaadku waa shay aad ku raagi doonine is-adkay oo rag sare noqo ra'yigaaga qiimee ragga qayb la yeelo wax la qaybso abidka risqigaad cunaysaay waa nimcad yaa beeray yaa xididadooda dhulka ku sugay yaa kuu qoray cunitaankeeda yaa ku siiyey fadligaas yaa ku siiyey afkani aad wax ku cunayso yaa mashiinka wax shiidaayey kugu rakibay yaa waxaasoo dhan ku siiyey waa allaah ee ku mahdi